dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee sheekadii filanwaa. meeshu waa kulliyadda Lafoole dhexdeeda. waa xilli cawaysa alaaba kulliyadda Lafoole iyo kulliyadda beeruhu dheega ayay isku hayaan waa laba kulliyadood isu dhow. haddaba ardaydu xilliyada ay firaaqada yihiin waxay isugu tagaan kulliyadda Lafoole oo iyadu markaa xoga jawi ahaan ka yara degan kulliyadda beeraha aadna moodid inay ka baaxad ahaan ka ballaaran tahay. farxaan waa arday haddaba isagu dhigta jaamacadda beeraha. dhinaca fankana aad ayuu ugu dheer yahay. inta badan marka ay ardaydu cawayska isugu timaado isaga ayaa gitaarka u tuma. meesha ardayda joogta ee markaa wiilal iyo gabdhaba leh ee markaa iyagoo heesaha qaadaya marmarna qudhadiisu heesaha wuu gashadaayo wuu heesaa isku soo xooriyo. farxaan waa arday aad loo wada jecel yahay. waa fiidnimo isniinah. arday ka timid kulliyadda beeraha iyo arday iyagu horey u sii joogay kulliyadda Lafoole oo wiilal iyo gabdhaba leh. dhinaca kuwa beeraha ka yimid laftigooda wiilal iyo gabdha ay isugu jiraan ayaa cawayskaa halkaa wada joogay. farxaan iyo saaxiibkii ayaa gitaarka boodhka ka tumayay. waana kuwan iyaga oo markaa ardaydu heesihii ay qaadqaadayaan. anigii heestii waxay garaaca khatardaano anu horta khatarada masiidaba ka helaa moogta khataraha waa xilli cawaysina dayax xunaa. waa 14 oo xilliga la yiraahdo waa geelqaad. kullay wixii dhulka kaaga dhaca si haleela ayaad ku helaysaa. ardayda waxaad moodaa farxadoodu in ay aad u sarreyso. maray sacbilayaan maray heesayaan markaa ay sawaxan iyo buuq kale isku darayaan adaaba yaabaya codadka ardayda markaa ka baxaya. farxaan saaxiib aniga waxa ay garaacay heestii oo wax dhintoo ka sameeyay taasaan rabaa. taas ay soo rogay.
waxa weeyaan ardayda habeenka xilliga cawayska iskugu yimaadeen waxay ahayd goorfiida saacadduna waxay ahayd 7 fiidnimo waa halka qaarna ay u yaqaanaan halka saace heesaha midba midka daran ayay qaadayeen talo gabdhaha maxaa ku dhacay waxay yidhahan waa cawaysa waa nala arkayaaye bal horta xagga ragga ha loo badiyo annagu sidaa ayaanu codsanaynaa ayay ardaydu yidhaahdeen mar kale ayay buuq kiciyeenoo waxaad moodaa in farxaan laftigiisa ay farta ku madayaanoo ay leeyihin war farxaan adigu markan maad hees ka tuurtid واي بلا مصب بلا hanaanka iyo quruxdan hiboy kugu jecelaado ku qooda sheeshe dumar haygu noqonine miyay dartaayo habeen socodku waasho waxaan heedhi taaban kawada sarrayse abboonay naftaydan cishqi baad ku noqoto cadaa ii hilaaye abboonay naftaydan cishqi baad ku noqoto cadaa ii hilaaye haddaad diido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygaan ku sugaya haddaad diido hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygaan ku sugaya ardayda labada kulliyadood waa la foole iyo beerahe xilliyada haddaba firaaqada habeenkii ay leeyihiin waxaa cadow ah inay isugu yimaadaan kulliyadda la foole halkaasoo aad moodid inay kulliyaddaa ka ballaaran tahay kana sawaxan iyo buuqu yar tahay sida aad maqlayseenba ardaydaasi cawayskii kolka ay isu yimaadaan waa habeenka isu yimaadaane si wacan ayay u tuntaan iyagoo suugaanta heesaha sheekooyinka kolba dhinac ka roga oo eega gabdhaha iyagu cawayskaa yimaada qaar ka mid a ayaa waxaad mooddaa inay si gaara faq isula baxeen oo talow maxay isweydiinayaan ayay ka warran bal cawayska caawa la dhigay sama fiicna yaa ugu cod fiicna marka yaa ugu cod fiicna marka aniga wuxuu ilaa maxamed ana laftirkayga waxaa la fiicnaa axmed oo idinka dhanba waxaan ka haystaba farxaana aad iyo aad ugu haysta codka iyo waxa dhanba baashe waa inaan joog iyo jamaal intuu eebba siiyey dabci wacanna ugu laray wuxuu aad u jeclaa ciyaarta kubadda cagta oo uu galab walba u boqooli jiray galab walba sida caadada ah waxa baashe uu sii dhex mari jiray xaafaday degan yihiin xaasaska ciidanka bilayska ileen waaba marinkiisa marka uu garoonka usii socdo iyo marka uu ka imanayaba waa galabnimo khamiisa wuxuu baashi u sii socday garoonkii kubadda cagta sida caadada u ahayd cirka
waxay isku gadaamay daruura cukan jawiguna cadar ayuu ahaa durba tiix dhibco rooba ayaa bilowday daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa dhibcihii roobku way sii badanayeen mar quraase dhibicdii ciriyo dhul ay isqabsatay baashe awal saanta wuu boobsiinayee mar qura ayuu orod cagaha wax ka dayey waxaanu hoos tegay geed weyn oo muugana ahaa oo dhibicdu aanay si sahla uga soo dusayn waa xaafaddii belayska dhexdeeda 10 tillaabo oo hortiisa qiyaastii aqal u jiray daaqad ka furnayd ayuu bidhaan ruux dumara ka halacsaday ishuu la sii raacay marna daaqadda kama jeesan baashi oo si toosa ayuu indhaha ugu hayay gabadh tima dheer midabkeedu dhin yahay bushimahana aad moodid in khad madow la mariyey ayaa daaqadda taagnayd oo shanlaysanaysay welibana hees ku luqaynaysay waa kabaaye kistii adkeentidee kordhintooda kiisha noqdeen roobkii ayaa qayooday baashase meeshii kama tegin ilaan gabadhii ayaa beer qaadaye ciyaartii u socdayna waabuu ilaabay oo muuqaalka gabadhan ayuu la amakaagay miskiin mar qura ayuu inta naqas ka soo booday isagoo isla hadlaya wuxuu yidhi oo tanna xaafadda miyay ku noolayd alla qurux badana amaan 4 tallaabo xaggeeda u sii qaadaa ilaan tintaa dhabankeeda iyo wejigeeda iga aadan si aan u arkay waa inaan ku dhowaadaa tanna ma moodayn inay meeshan oo kale iga soo bixi doonto jawiga iyo daaqadda iyo gabadha taagan waxaadba moodaa 3 xagal la isku jaangooyey inay tahay baashe miskiin gabadha bidacdeeda tinta dheer afka duqulka la mooday madow midabka dhinka ayaa beer qaaday waa kaa keligii isla hadlaya sidii isagoo isla hadlaya ayuu xaggiisa dambe mar qura wuxuu ka dareemay waa waryaa mama ameen baa laisku ogaayeen waa xalxadeen ma maalin baa xabisa xariifow horta saaxiib ha igu qaldamin anigu tuug maahay sida iga muuqatana anigu nin ciyaartooy ah ayaan ahay meeshana roob ayaan ka soo galay laakiin tuug maahay saaxiib see kaa noqotay aniga kale waxaan ku sheegayaa guri islaam waxa maalinta markay dhibicdu bilaabatay roobka saad dirshada hadba dhinac ugu soo socotay dirshada adoo hoosta ka galaan ku jeedi muxuu ka qabanaysaa laakiin watanka wax kama rabin xalo waa ujeeda alaab rabin xaday oo la ordee dadka cid alaabta rabin qatay ma jaah rabin xariif uma kan laakiin hal midaan kuu sheegay saaxiib dadam maxaa qofka markuu xadayo ama uu wax dhacay qaab gaar u leeyahay anigu ma bidhaan tuugnimay adiga abu waxa tuug waxa isdabaalinaya tahay din cadayso warkaada ku laakiin daaqadii joogo warana xaafadana ku nool saaxiib dhageyso ninkaan nin tuugo ma ko filin karo ka beecsan yaa ka maqan saaxiib maya aniga waxa iga maqan maya xogaha raada ay qabtay gabadha daaqada joogtaan reeran dhaw glass biya ay dhig maya glass kartay la urdi ka bacso maaha glass waxa la cararto ma war waa la cararo jeebkayga lacagta inta ku jirto fiiro lacagte inta aan haysto بروني وسعد جد بروني كويه وتعمل جد كويه بروني سوى اني وقلت حريف ما كان غلط وديس ولا على كل حال عرفوا حافظ انك لو ريتش هذا ما وضي عامر وانين قناعسده مال الدنيا ilaahay uu u dhiibay waa nin jin ah oo muslina wuxuu dhalay 5 caruura waxay kala yihiin 2 gabdhood iyo 3 wiil waxa la kala yiraahdaa Leila Naciimo Ubayd Qadmaan iyo Salim xaajigu ganacsi ayuu dibadda u qabtaa waa Caamire imika marka wuxuu doonayaa in uu tago Dubai si badeecad uu uga soo rarto آوي ليلى أبا إدغيسو أي أيانتان وركاغا ومقلانيغا كوانك ملايا توريكتا كوانك ملايا لغا شيغي maxaa samaysaa أبا كوانك ملاي لو دونا أنا وحكر موادي maya aniga ma been ii sheegaysaa wariyaa مايا
warkaaga waa maqli kawaanka malaay mar kale haddii lagaa soo cawaado iska jir abaa anaga kamaanka malaayga wax kale muu doono malaaya u doonaa malaayga waa jecelna waa ogtay qaadi waa ku cunaa quraacdii cashadii kulli gurigeena malaay lee laga jecelyaa malaay lee u doonaa aaba malaay kan mininka yaala maho kan lee dhameebo mininka malaay kan buuxa ma ohoriya anaa maa been ii sheegaysa haddana abaa malaay lee u doonaani waa kuu sheegay mar kasta maku celcelin kari malaay lee u doonaani hadda warkeyga maqal malaayga mininka yaala usoon dhammaanin malaay kale ma la keeni karo aawi tii kalena waay kana aabe naciima waay kan warkeyga maqal haye adiga ayaantan xaalkaaga ma kasooyi naftarkaaga maxaa dhacay hanuunba kuukula shaal iyo barfuun iyo waxa lidku jirtaa dhinacan jaamacadda lafoolana waa lagaa sheegohayaa aaba aniga la foolo ma aado been waay waxaas ana maa idhahay uriyaa ma aado yaa kugu dhahay warkaas aniga meeq maraan ku arki naftirgeyga meeq maraan ku arki aaba aniga guriga maba ka baxaba maraan jiifo iyo maraan wax akrisanayo kaliya weeyaba haye ha waxaa yeelaysaa aniga safaraan ahay haye warkan oo hadda la shiishiigoyo mar kale yaan maqlin haye haddii awal aan samayn jiro waay mar kale ma aha cubeyd وايكن ها وايكن وريا عبيد واكو مقلوبة adiga ayaantan seebay xaalkaaga warbixin isiibo xaaladii bari dhaxaway yaaba haye caadi adiga wax waaye ay waa laga soo cawaadi cawaadi jiiraanka dhan waa ka soo cawaadeen rabshoolaa tahay nin rabshi badanaa tahay may markasino aniga sharaftayda iyo akhyaarnimadeyda ku dheeloysaa see u dheelo been waa abaxas waxaan ku leeyahay haye istaji واستجيب أنا ضد مسلم أنا مربنا عباد إن واحد نجي مربنا ما أي وقت كورة لأن دي بقى جيسنا مركز كذا صبر وصبر يسا ما كستي والله كورة ملا صبر مركز ها أوي دقيسو أنا جي سفر أنا هاي واقرت وحن وذر لينا مركي سفر كعن كسون نخذه هاي دبي يا ربعنا هذا أو دبي يا رتابنا ها وانقرت هذا وحن كلية هاي جيرانك يسوح كاشيجن أبو سيرو وحس كاشيجن حسين مرودي وحس كاشيجن يريد كل دين عسنا حكتي يا وحكا سو شيء يريد اسمور ولا في الله يقدبي يا وحكا شيء دد كان ودن كحشو احترام هذا هذا واي وردك حافظ الواي دبين كودي واي اسكنا فتر هذا كل شيء هذا ورواي دبين معها اذا بلاها وادقه اوكي اب مدحها اوسكي كالمه اوكي ابا هيا دبي مركي تكتد هيا انا وحربا هديدنا اي كنتد هديد هيا محانكو كينا ابا انا الذهب ان جعلها موقته aniga taladaada waan yeelay waxaan kaa rabaa haddaa baxdi inaa ana wax ku dirsadaan rabo haye maxaa rabtaa adne aaba dahab iyo dharaan rabaa cubeyd haye adne ana waxaan kuu dirsanayaa gaari maxaa la macnaha baabuur aba caamir anigoo ah waxaasoo dhan 5 daqiiqo aan ku keenaa anoon abu dabay aadin maxaa kaa rabaa mataqaanaa haye 12 gaari oo aku sacatid midba maalin saacadba maalin warkaaga waa yeelaya markaas qof waliba wixii raba anaa u keenaayo diriskana waa ka leexanaya laakiin ballanqaad qof waliba amarkeyga waa inuu qaataa inu afraatan saac gurigaas ka joogayna aaba annaga taladaada waa yeelaynaa waana kaa dambaynaynaa laakiin waxaa noo samaysaa wixii aan kuu dirsana noo keen ma idinku ogay waan ogtahay ballan waaye waa idin keenaa wax alle wixii aad rabtiin laakiin diriska diina dadaya dib waan u geysayna maleeyani saasaan ku dhowna aabe laakiin aabe dubay waa inuu soo daaho maleynaan dhegayso ha labada kale maqanna ha usii sheega waan gartay warka hala gaarsiiyo adaa weyn aabe leela aabe labadaas kalena u sheeg haye warkeyga gaarsii waa u sheegaane naano haye ma kasino ha ayagana mar hore ila balameen ayagana waxay rabaan waa u keenay iyaga wax ku dirsadaa laakiin aba mar hore aba anaka waxaan rabnaa waxa dhan warka waa qaadanaynaa anakana wixii aan ku dirsanaa ani dahab badan aan ku dirsaday ii keen waa ku keenaa naciima iyadana waxay ku dirsato u keen waa u keenaa walaalkay wuxuu ku dirsado u keen kulli walaalaheena abaaboogan baxay adile waaye ha ba waxaa kaloo kuu sheegaa haye qadmaan saalimna waa madax adeegiin warkeena yeeli maayaan anaga maya walaashooda kabeen haddii la hadasho warkeeda waa yeelayaan laakiin adiga halaadni aad rabshoola waa dilayaan kuwaas aniga adiga waa ku dilayaa kaa ka dhawaana
هيا هيا ما فاهم يساوري واكسي حتى وابحاني هيا ابي وابحايا هيا هيا ان شاء الله bilicdiisa baad baa beer qaaday waxaase uga darnaa wax walba dabcasar iyo dibindaabiyo oo ah laba nin oo dhibaato ku shaqaysta xaafaddana caanka ah magaaladoo dhanna aad looga yaqaano kolkii uu gacanta u galay maxayse kuugu taal dirqi iyo to'alla ayuu kaga soo baxsaday isagoo neeftuuraya qalbaddana ku haya sabaad waxa uu yidhi baashi iga tag laba nin oo yaab leh baayaan kuwane wejigoodaaba argagaxaya cabsi leh haddayba kuwaasi dhaafeen anaaba nasiib leh laakiin waxaan la iloobi karin qoftii aan arkay walee aniga iyo geedkaas iyo dariishadaas u malin maayo inaan kala fogaan doono sidayba laabteyda u ruuxda gabadho anoon gabadha helin inaan nasan doono u malayn maayo qalbigu xaggeedu usii jiidmayaa laakiin kuwii baan ka baqaya inay mar kale meeshii ii istaagaan hadda waan isaga tagayaa laakiin waa inaan xaggeeda u bato وبنكنا ودنكا عقبري لو يجدا بيكون لا يهلو دورا عليو ماروين كسوني عطينا الدلاهلو هذا الفيا كويا ودنكي كوايو بدنكا يالي waa hagaag dhegaystayaal qaybtii koowaad ee sheekadii filanwaa intaa ayaynu ku soo afmeeraynaa tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leeyahay nabadgelyo